Assalaamu calaykum, halkani waa Hoyland. Waxaan kula wadaagaynaa dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dunida soo maro, kuwaasoo intooda badan aan ilaa hadda wax fasir dhawa loo hayn. Daruuraha muunadaysan ee subaxii waa daruuro xajmi weyn oo wada socda, kuwaasoo la arko aroortii. Waxaa si joogto ah looga arkaa oo ayba caadi tahay in laga arko gacanka Carpentaria loo yaqaan ee ku yaala waqooyiga Australia. Daruurahan waxay caanka ku yihiin inay sameeyaan guutooyin daruuro ah. Waxay dhulka ka sarreeyaan ku dhawaad 200 oo mitir, kuwaasoo jara 20 mitir halkii sekinba. Roobka dhiigga roobkan ayaa ah mid midabkiisu yahay dhiig. Dhacdadan ayaa ka dhacday meelo badan oo dunida ah, laakiin meesha ugu badan ee ku soo laalaabato waa magaalo lagu magacaabo Kerala oo ku taala India. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee dhacdadan la arko sanadkii 1896. waxaa la sameeyay isku dayo badan oo lagu ogaanayo waxa midabka roobka ka dhiga casaanka. Markii ugu dambeysay ee dhacdadan la arko waxay ahayd bishii June 2012. isla sanadkaas waxaa sidoo kale laga arkay Sri Lanka. Dadka ayaa ka aaminsan inay yahay calaamad xun. Dhagaxyada socda dhacdadan ayaa ka dhacday dooxada lagu magacaabo dooxada dhimashada ee ku taala California, Mareykanka. Dhagaxyadan ayaa u socda si iskood ah. Dad badan ayaa rumaysnaa in dabayshu tahay waxa socodsiiya dhagaxyada, laakiin macquul ma aha sababta oo ah dhagaxyada xajmigoodu waa kuwo aad u waaweyn, wayna adag tahay inay dabayl dhaqaajiso. Markii ugu horeysay ee dhacdadan la baaro waxay ahayd 1900. ku dhawaad qarni ayaana saynisyahanadu u suurtagelin inay ogaadaan sababta ka dambeysa dhacdadan. Holaca aan demin holacan ayaa ah mid aan demin sanadka oo dhan. Waxa uu ku yaalaa magaalada New York. waxaa sanado badan dadku la yaabanaayeen holaca aan damayn sanadka oo dhan. Holaca dhererkiisu waa 20 sentimitir. waxaa la ogaaday in holaca hoostiisa uu ku jiro gaas dabiici ah, kaasoo dabka u suurtagelinayo inuu sii ahaado mid sii holco. Dhagax lagu magacaabo Rain Street Shell ayaa ah midku gaas ka yimaado, kaasoo ka hooseeya dhulka 400 oo mitir. meeshan ayaa waxaa aad ugu badan gaasyada dabiiciga ah ee ethane iyo propane. Harada guduudan ee Natron haradan waxay ku taalaa Tanzania. wuxuu cabirkeedu dhan yahay 57 kiiloomitir oo dherer ah iyo 22 kiiloomitir oo balac ah. Saynisyahanadu waxay aaminsan yihiin in heerka macdanta iyo cusbada ee biyaha ay aad u sarreyso. Midabka guduudan ee harada ayaa waxaa loo sababeeyaa in ay tahay volcano ka dhacday meesha. Albaabka naarta meeshan waxay ku taalaa waddanka Turkmenistan. waxaa la qiyaasayaa in ay si joogto ah u socotay gubashada meeshan ilaa 1971. baaritaano badan kadib, ugu dambeyn saynisyahanada waxay baaritaankooda kusoo gabagabeeyeen in dhacdadan ay sababtay in asalkeedii hore ee meeshan ahaan jirtay goob saliid. Godka weyn ee buluuga ah waa god weyn oo badda ku dhex yaal. wuxuu masaafo dhan 70 kiiloomitir u jiraa magaalada Bay City ee ku taala Mareykanka. waxaa la rumaysan yahay in uu samaysmay 1500 oo sano ka hor.